عقلigaaga caqli dameer ayuu eegyahay xajaaj wuxuu yiri ima garanaysid miya wiilkii yaraa wuxuu yiri wajigaaga madowgiisa ayaan kugu gartay markaad hadal igu bilowday adigoon isalaamin xajaaj wuxuu yiri war hooge soo ma ogid inaan xajaaj ahay wiilkii yaraa wuxuu yiri ilaahay gurigaaga ma soo dhaweeyo martidaadana ilaahay kuuma sooro hadal badnida oo karaama darnida xajaaj hadalkii intuusan dhamayn wiilkii yaraa uu kortaagnaa isagoo dultaagan oo hadalkiina uu dhex socdo unbaa askartii waardiyeynaysa xajaaj bin yuusuf athaqafi soo kala carartay waxay yiraahdeen taliye hadal waan ku maqlaynaaye na amar waan samaynaynaaye xajaaj wuxuu yiri wiilkan yar ii qaada hadalkiisii aad buu ii xanuunjiyey ii kaxeeya qasrigayga meel ka mida iigu xidha wiilkii yaraa bay kaxeeyeen qasrigii bay meel ka mida ku xidheen xajaaj wuxuu iska soo dhammaystay ugaarsigii waxa uu ku soo laabtay qasrigiisii markii uu kursigii fadhiistay buu wuxuu ku yidhi ii soo saara wiilkii yaraa wiilkii baa waxaa la keenay qasrigii xajaaj uu ka talinayey ee ay fadhiyeen wasiiradii iyo ciidamadii kuwii ugu sarsareeyey wiilkii yaraa markuu meeshii soo istaagay wuxuu yidhi assalaamu calaykum salaantii wax ka celiya ayuu waayey oo ka radiya markaasuu dhinacyaha intuu eegay buu wuxuu ku jawaabay hadalladan soo socda أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين سدح ذا آيات بكد الأخريين